waxaan u babaxayaa dalka aynu walaalnahay ee Ethiopia oo aan ka helay barqaad rasmi ah halkaas oo aan kula kulmi doono ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia. dalka Ethiopia waxaa naga dhaxay xiriir dheer oo soo jirana xagga iskaashiga nabadgelyada ganacsiga iyo socodka labada shacab waxaana dawladaha ku faraxsanahay xiriirka wanaagsan ee naga dhaxaya dawladda federaalka Ethiopia oo aanu jecelnahay inuu sii xoojino sida laga warqabo dhawaan maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxa ka dhacay isbedel siyaasadeed hoggaankiisa waanu soo dhaweynaynaa isbedelka ku dhacay si nabadgelyo waxaanu u hambalyeynaa madaxweynaha cusub ee Puntland ee la doortay waxaanu ka rajaynaynaa madaxweynaha cusub in nabadgelyada oo muhiim ah oo ah deganaanshaha gobolkan uu xil weyn iska saari doono xukuumadda Soomaaliland iyada ka mas'uula hagidda qorsheynta hogaaminta iyo go'aanka qaadashada arrimaha siyaasadeed ee qarankani leeyahay gudaha iyo dibadba dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu waajibinayaa mar walba cidda loo soo doorto talada qaranka ee kalsoonida shacbiga ku yimaada inay tahay takaliya ee ogmin hogaaminta guud ee qaranka wadahadalka xukuumadda Soomaaliland ay leedahay Soomaaliya waxa ka mas'uula oo xilsaaran xukuumaddan aan madaxweynaha ka ahay ma jirto mana jiri doonto cid mas'uuliyad sharci aan lahayn inay si toos ah iyo si dadbantoon midna ay u gasho ciddii isku dayda inay gacan dhaafto xukuumadda oo saameyn ku yeelan kara qaranka waxaa loo aqoonsanayaa in dastuurka qaranka iyo shuruucda dalka ay taalla ay baalmareen waxa xukuumaddu ay u digaysaa cid kasta oo dibindaabiyo geysanaysa qarankan u geysanaysa laga qaadi doono tallaabo waafaqsan shuruucda dalka loona aqoonsanayo inay yihiin qaran dumis madaxweynaha Puntland ee cusub xoolaha ku galay in uu dib u soo celinayo oo dagaal la galayo Soomaaliland gobolada waliba Sool Sanaag arrintaas ay u aragtaa su'aasha labaad waxay tahay mudaharaad baa ka dhacay Hargeysa balbala mudaharaad baa ka dhacay Burco mudaharaad baa ka dhacay arrintaa wali kama hadal madaxweynaha balse ay u aragtaa arrintan arrinta Soomaaliland wuxuu ka saaray qaranka Soomaaliland dawladda Soomaaliland buu ka saaray qaranka Soomaaliland dawladda doorashooyin ka dhaceen anagu waxaan la jecelahay nabadgelyo waxaan la jecelahay jaar wanaagsan inaan noqono waxaan jecelahay nabadgelyo qaranka mandaqada ay ku noolahay ka dhacdo wixii nabadgelyo darro ah iyo wixii dhibaato ah iyo wixii u geysanaya qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliland mas'uuliyadda xilkeeda waxa qaaday qaranka Soomaaliland baana ka mas'uula ilaalinta iyo waajibaadka ka saaran qaranka ilaalintiisa madaxbannaanida iyo xorriyadiisa إذا أنا أقوم بالخاتم هذا مشكلة. sidii ogna hay wax la filaya shan tobanka bisha inuu kulmaan wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya xisbiyada mucaaradka oo waqtiyadii hore ka qayb galay wadahadalada waad ka joojisay waxaan leeyahay xukuumadda oo kaliya qabsanaysa in xisbiyadu waxay ku leedahay hadii aw hadalkaasi ka qayb shakiligi in iyaguna ay furi doonaan marka maana sumcad darro ka ahayn iyagana la shiri doonaan sumcad darro ma ahayn mas'uuliyadda qaranka waxaa loo doortay oo shacbigu u doortay oo ummaddu u dooratay dawladda Soomaaliland u dooratay dawladda Soomaaliland مسؤولية عدة أي المقطع وارقته إلى كحسته أي كحسنة عدة أي كتجسنا وكتجسنا مسؤولية يحلكوا الأسرية هي دولة الصومال الأسرة دوم بدي الشعب غدور إذا عن غدور المسؤول كبس